كان نبديك حالي أي لبن ميلود ساكي أروتي صورين أمدي ميلود بإلهي وكتشبيي وبري رأي أو ديقله كنتي 10 إلا وانا ماشي أسكراعي ومانا ملايين هاي ميل دنبوحيين جوغيني سؤالي دونان كدبنا maydkoodii baa banaanka warmay way soo carreen laba qaybood bay u kala jabeen qolo la yidhaahdo meel shaam garra aaday iyo qolo la yidhaahdo meel tuulo la yidhaahdo aanoolay aaday labadiiba haddeeraanu hawlgal ku jirnaa waa soo afjarray marka khasaare aan labadiiba soo gaartay labadii meelood dhaawac ay ku gurteenba waa la soo afjaray xaaladdu hadda waa 100% hadda saacadaan kala soo hadlayo magaalada Bariire dhexdeeda joogaa tuulada Bariire markaan nabadgelyo weeye nabadgelyo waayahay taliye waxa ay sheegteen argixisadu in ay Bariire la wareegeen jab xoog lana ciidanka ay gaarsiiyeen hub badanna ay qaateen arinta maxaa ka jira wax ka jira hadda Bariire bartankiisa ana kala soo hadlay iska dhaafsanada iyo Bariire oo ka shaqeysa ayaa dhex joogaa wax ka jira ma jiraan shabba loo geystay ama malaynayo inaan waayaha loo geysan mana soo laaban doonaan insha Allah waayahay qasaaraha rasmiga ah ee gaaray tirada dhimashada iyo dhaawaca talisku xog ma ka la dul istaagay waa 76 ay dhimashadooda dhaawacyo ciidanku hayaan oo ama gacanta lagu dhigay ma jiraan waxa laga hayaa dhaawac badan ahay laakiin dhaawacoodu yar fudud yahay iyo kuwa nolosha lagu qabtay oo dhaawac inuu talo kuwa tiradoodu ma noo sheegi kartaa waa 7 waayahay waxa soo laablaabtay weerarka argixisadu ku qaadayso fariisimaha ciidanka Bariire iyo Dhiiglaba ugu badnaadaane taliye maxaa soo celcelinaya nimankan sida khaladka diinta u fasirtay bisha Ramadaan waxay aaminsan yihiin inay janno gaar ah ku helayaan ummadda leynteeda marka waxay isku soo beegeen xilliga bisha Ramadaan timaashaheeda iyo ayadoo ay ka baqayeen wadigu inuu biyo keeno oo hadda uu jidxir ku sameeyo labada arrimood isku soo beegeen laakiin labadiiba waa eeday waxaan sheegayaa deegaanada ciidanka gacanta ku haya dadka shacabka ah noloshooda ku soo laabteen iyo go'doon inta maqlaysana waxay ku talagalaysaa inay Soomaaliya maanta haysato ciidan difaaci kara oo nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda ballan qaadi kara insha Allah